بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan joognaa magaalada Ceeri Gaabo waa maalin salaasa ah. waxa socda ololihii xisbiyada ee doorashada baarlamaanka iyo golaha deegaanka. inagu ummad islaam baynu nahay. nidaamkan doorashadana badankiisa ama siduu yahayba waa nidaam gaalo ay noo soo waariday. wixii xagga gaalada inaga yimaada wax fiican iyo wax xunba way leeyihiin. waxaani gaala keentay kaliya loogama tago, wanaag baa ku jira kaliyana looma wada qaato. waxa wanaagsan markay inagu ummad islaam nahay wixii ay gaaladu inoo soo waarido isagoo koobiyo sidiisii inaynaan u qaadan ee aynu iska shaandhayno. ilaahay subxaanahu wa tacaala diin qiimo badan oo miisaana wax kastoo inagu yimaada aynu ku miisaano, aynu ku kala shaandhayno, aynu intiisa xunna ku tuurno, intiisa wanaagsanna aynu kula baxno ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala inoogu nicmeeyey. dad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay inay bahaa'imta ay ka liitaan inaynu dabagallo oo sidii neef xoola ah ay noo kaxaystaan iyaduna mushkilad weeye inteeda leeg. waxaa ka muuqanaysa ololayaasha iyo waxyaalahaas hadda socda gudaloolooyin iyo ceebo culculus oo dhaawac ku ah diinteen iyo dhaqankeen iyo dadnimadeen. waxaan odhan karaa ololaha gebigiisaba looma baahna. waxaa looga baahan yahay olole ma isweydiinin. doorasho olole waynu u baahannahay oo de in dadkii wax doortaan qaabkii loo dooranayaanu ka wada hadallee, laakiin in wax la doorto oo dee wax cid la soo saaro, cid markaa maamulkii qabato waa loo baahan yahay. laakiin aynu isweydiino nidaamkani maxaa shareecadeenna waafaqay, maxaan waafaqaynin, maxaa sidan ay gaaladu u dhigeen si ka qurux badan loo dhigi karaa. ma aha inaynu inagu iska dhigno dad maskaxdoodu qufulan tahay oo wax uun loo yeeriyo oo sidiisii wax u qaata. taasi waxay dhaawac ku tahay caqligeen iyo maskaxdeen. dadaan iyagu waxba garan karina waxuun loo yeeriyo inaan noqono. waxaa kaloo dhaawac ku tahay diinteen. saas daraaddeed waxaan soo jeedin lahaa in dadka waxgaradka ah iyo ahludiinka iyo aqoon-yahanku ay kulmaan. waxaan maxaa loo baahan yahay doorashada waxyaalahan badan ee dhacaya maxaa loo baahan yahay, maxaan loo baahnaysa, maxaa shareecada waafaqsan, maxaanse shareecada waafaqsanayn in la daraaseeyo. taasaynu markaa ku noqonaynaa ummad jirta oo huwiyadeedii maaragtay shakhsiyaddeedu ay tahay mid aan ku milmin beesha caalamka waxa la yidhaahdo oo reer galbeedku ay hoggaamiyaan. haddii kale waynu milmaynaayoo sonkor inta biyo lagu daray meelantay oo muuqan weyday oo kale ayaynu noqonayna. arrintaasi arrin la dhayarsada ma aha. waa arrin aad iyo aad aayaheenna dambe iyo diinteenna ifkeen iyo aakhiradeenaba saameyn weyn ku yeelanaysa. heesaa la shidaya, cirkaasaa la geynaya. waxay dhowaan aynu ka soo baxnay bishii ramadaan oo tahajudkii la yidhi mikrofoonada dadkaa laga baqtay, dad baa seexanaya. waana arrin fiican, laakiin maxay tahay in ololo doorasho 12 habeennimo ummadda lagaga salaliyo huruda iyo carruuraha haddii cibaadadii iyo qur-aankii si aan dadka loo dhibin loo demiyey, mikrofoonadii looga demiyey? miyaanu doqonnimo inagu ahayn inaynu heeso iyo ololo ku shidno dadka saqda dhexe iyo dadka hurdaan, qof jilicsan iyo qof xanuunsanaya iyo carruuro iyo wax walba leh, dumarkan iyo raggan isdhex yaacay? maxaynu uga baahannahay? ololaha gebigiisa maxaa looga baahan? haddii ololaha laga tago la iskaba daayo maxay nagu sheegaya? waxyaalahaasoo dhan inaynu
aynu daraasayno ayaynu walaalayaal u baahannahay marka ayaynaan dhayalsanin aqoon-yahankuna waa kaalintoodii culamaa diinka waa kaalintoodii ma aha sidaydan oo kale in kelmad inta meel laga soo jeediyo la iska fadhiisto waa in tallaabooyin camaliya la qaado laysu tago muqtaraxaad iyo soo jeedin la sameeyo waxa weeyaan saasaynu samayn karaa saas deetana waxa weeyaan wixii la rogrogo deetana soo jeedintaasi loo gudbiyo dadka ay taladu ka go'do ama talada markaa gacanta ku haya aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu